مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومهد إلهي مانتا دتكي مدوي مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا ومال ويني مانتا مدحين بناني مانتا مركيد الكينة مانتا حفلة الصومالية أنا كنت بالدقينه هذا نهار الله سبحانه سبحانه عمل حلولي جميزا بالقرآن لكن وين نسود ولا نهي كذا يراها فقط قابيها حفلة قيمة يقايها بدن وأي نوع هاي دمان تشرف إلى ما تود حسينه مالي نجوم أمك ودم مالك يا بياشين أو ياشين يدوس ودرين waxaan leenahay Soomaaliya ha noolaato hana israaco Soomaaliya toso iskutisanaye adakina dalgalale taageera waligere Soomaaliya toso حقيقة ومالين فرحت ويقولون هذا فرحت ويسين وقاف كان أوابك أنا ضمن هذا علينا يعني فتاح يركز تسوي هون شان غيرنا عاديا مناسبة ولا غلط في الوقت بسمع ما شافوني لكن وتاريخ ما تقول ليس مالك يقول الرئيس وصلت كهيسيكي ومكي أعلم ولا فينش كهاي ولا أنا كان كل وراجع مناسبة وتاريخ حقيقة يجلسين وين أو إلى تاجره يجلسين وين إن شاء الله تعالى قوة صوت الله هالكاسي كاسي سعودنا برضه وين وعنا ما يسنتهي هدول أهل ما تقول كلوليو
sidoo kale maalmaha soo socda ee la midka 26 Juun oo kale sidoo kale inaan iyaga ku dabaaldegno Soomaalinimadeenooda iyo 27 Juun oo sidoo kale maalinta xorriyadda qaadatay dowladda Jabuuti waxaasoo dhan waa geesinimo muujinaysa inaan nahay dad Soomaaliya haddana dad Fiilisha annagoo Fiinland degan santarkii weynaa Helsinki si geesinama carabkeedii iyo maaragtay dhaqankii Soomaaliga suugaantiisii heesihiisii watay iyo maaragtay heestii caankaba inuu ku saarayno Helsinki dhexdeeda aad baan ugu mahadcelinayaa dhallinyarada soo abaabushay waxaan leeyahay maaragtay waa munaasabad weyn waa 53 guuradii xorriyaddii Soomaaliya dhinaca koonfureed iyo midowgii Soomaaliya waqooyiga iyo koonfurta 53 guuradeedii haddii la haydmo barwaaqo iyo basbash baan u rajaynaynaa Soomaaliya nabad inay noqoto haddii la istiqraar iyo amni in la helo horumar hadda bilowday waxaad ogtihiin inaan ka baxnay kumeelgaarnimadii oo dowlad dhamaystiran maanta aan leenahay waxaan leenahay ha jirto halkaa ha ka socoto shaqadeeda haddii la kuwii fara heer baan gaari doonaa laga helo Helsinki inuu ka taagno calanka Soomaaliya oo safaarad Soomaaliya leedahay Helsinki dhexdeeda laga helo haddii la haydo Sayuta iskuulka odayaal harinaya Sayuta iskuulka odayaal harinaya Ilaahay siiyay isaga ku abaanay Ilaahay siiyay isaga ku abaanay Soomaalida maanta meesha isugu timaaday waxaan aad ugu mahadcelinayaa Cabdifataax oo ah wiil aad u dhalinyar haddana fikradaan maanta aan inta isugu nimaadno keenay marka waxaan leeyahay sacab uu mudan yahay waxaan kaloo leeyahay gabadheena quruxda badan ubax oo iyagana muujisay dadaal aad u weyn walaashan waxaan leenahay iyagana aadaan kaaga mahadcelinaynaa sacab waxaan kaloo aad aan ugu mahadcelinaynaa kuna taageeraynaa maadaama dowlad ay annaga maanta noo dhisan tahay oo aan ka gudubno xilligii Soomaaliya ay dowlad la'aanta ahayd iyagana waxaan leenahay hambalyo inkastoo maanta meeshaan qorax ay jirto ay qurux badneed meel intaan ka weyn annagoo Soomaalida Fiinland wada joogta aan ku wada caweyno haddana ma ay noo suurtagelin laakiin waxaa maanta jaaniskaan meeshaan aan isugu nimid aad isugu dayay dhalinyaro sababtoo ah 2 qofood oo dhalinyaro ah oo aan magac ku hadlaynin urur ku hadlaynin oo maanta Soomaali halkaan isugu keentay waxa waaye waxa ay mudan yihiin in fadhiga looga kaco markii istaaga idin leeyahay sababtoo ah inta maanta meeshaan ka soo wada qayb gashay qof walba waxa waaye casimaada loo diru ku yimid Cabdifataax iyo ubaxaana la wada casuumtay marka waxaan leeyahay insha Allah sanadada soo socda kolley reer Fiinland inay hal mayl ku wada aweyso ayaan rajayn doonaa aniga Saciid ahaan taasna waxa waa dadaal badan loo baahan yahay waxaan kaloo rajayn doonaa in aan waddankeennii Soomaaliya aan ku wada aweyno oo Soomaaliya aan ku wada qaadano sababtoo ah waddankaaga markaad joogtid way ka duwan tahay maanta annagoo Soomaaliya joogno muqdisho dhexdeeda aan joogno ama magaalo kale aan joogno dareenka aan maanta aan dareemayno mid ka duwan ayaan dareemaynaa markaan waddankeena joogno waxaan aad aan idinku mahadcelinayaa dhammaan intii kasoo qayb gashay waxaan aad ugu faraxsanahay in maaragtay maanta dadkeena Soomaalida iyo qurba joog sida anigoo kale
dhowr iyo labaatankiisa ugu dambeysay Finland joogto inaan jaanis ku helno inaan waddankeeni maalin walba aan tagno oo aan soo aragno xaaladda Soomaaliya oo aan dowlad soo aragno marka waxaan idin leeyahay mas-uuliyadda annaga maanta na saaran waa mas-uuliyad tan ka weyn sababtoo ah waddan iyo dowlad ayaa maanta jirta taasna waxaa la rabaa in xil la iska saaro in maxaa la dhahaa kulay dowlad aan shicib lahayn dowlad ma noqoto dowladda daday u baahan tahay shicib ay u baahan tahay adinkana inaad taageertaan loo baahan yahay qarannimay u baahan tahay soomaalinimay u baahan tahay dareen wadannimay u baahan tahay dhalinyarada meeshaan ku dhalatay oo aan waddankii arkin oo aan weligood xataa dream aan ku tegin iyagana in la geeyo in maaragtay aan tan mid ka fiican oo ka weyna aan isugu imaano insha allah waxaan idin leeyahay Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha israacdo Soomaaliya سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله waxaan aad ugu mahadcelinayaa walaalkeen Cabdifataax iyo dhammaan dhalinyarada soo qaban qaabisay barnaamijkan waxaa weeyaan barnaamij runtii tilmaamayo Soomaalinimadu iyo wadanimadu halkay ay ka taagan tahay waxaan horaan u arki jirnay sanadadii hore marqaati aan ka ahayn in Soomaalidu gooni u kala ciido
una kala xafideyso laakiinse maanta waxaan aragnay soomaali ku mideysmatay kaana saara sida 1960 waalidiinteena iyo hooyooyinkiina ay ugu midoobeen iyagoo siibayo saarayana calanka iyo isticmaalka uu watay ingiriiska iyo talyaaniga maantana waxaan ku mideysnanahay ayna tahay inaan ku midoowno anagoo siibeeno waxa qabiilka la yidhaahdo anagoo saareeno waxa la yidhaahdo midnimada iyo soomaalinimada waxaa ceeb weyn lagu ah waalidiinteen awowyaasheen iyo intii ka sii horeysay dhiigoodu u daatay in annagu maanta aan xor ahaano in annagu aan helisidii aan awood u yeelan karno inaan ku heesno calankeenana ku qaadanno in isla markaa annagu qayb naga mid ahna aan garan kari weynay inaan xornimada iyo dhiigga waalidkeenu oo daatay aan u ilaalsani kari weynay mar labaadba waxaan rabaa inaan u mahad celiyo cabdifataax runtii shaqada uu qabtay waxaa weeyaan shaqa nin ragge kama hari karo gabadha uu wax la yidhaahdo walaasheen shaqada ay dhammaan ururadii ashqaasta ka soo qayb qaadatay kaamerisiyaasha iyo shacabka sida wanaagsan oo quruxda badan leh ugu soo kala qaybay waxaan rabaa inaan hal arrin kusoo koobo hadalkayga halkaa arrinna wuxuu yahay wax walba xaflad walba aynu samaysano soomaali walba iyo meel walba aynu la baxno haddaynu ku midoobi kari weyno inaan ilaahay ka cabsanno oo shaksi walba oo soomaali ahna uu naftiisa ugu cabsado ilaahay soomaalinimadan ilaahay ugu cabsado aana garanno waxa ay tahay soomaalinimadu iyo micnaha ay soomaalinimadu way leedahay inaynu marnabo horumar gaari karin waxaa maanta farxad inoo dhowr iyo 20 sano dagaal iyo qaxootinimo kadib in iftiin uu inoo muuqdo iftiinkaa oo insha allah aan ugu bixi doono dhibka iyo dhibaatada aan ku jirno aad baad ugu mahadsantihiin soomaalina ha midowdo soomaalina ilaahay raali ha ka noqdo ilaahayna dhibka hanaga soo saaro insha allah اوكي ونور ومحطته ومدعلنا في شرطة الإمام في البرنامج في عقود يريد كيف كان بتدي قلت وحن كده رسمي نسيت دقيقة يوحنا وعلى سيد وعثمان مرة ما تحسوا ما يوضي سؤالنا على كيف ترى هو تفهم كل أسبوع لوجيه يسوى على كده يسوى حكاية دوشة القوة مرة هو تلاقي يسوى راعي بعوض كمان مرة أي كده شيء نرجع بسيط sida uu hay'adda aadgo ugu taqaaniyo marka laba habar maxmaayeen aan sheegay Assalamu alaykum Artiyaale awqtin magaca Usman waxaan lagu magac daraa caalamkeeda maxaa yeelay mar walba oo xafada oo luuley la garo maxaa caalamkii hore ay wataa marna ma kasoo tago waxaana dhaama dhalinyarada fiilan oo ka faanaya inay calankood Soomaaliya kor u qaadaan marka dhibaatada oo wadanka fiilan ka jirta maxaa waaye carruurta oo had soo barbaarayso waxaa jeclaan lahaa inuu ku barbaariyo soomaalinimo wadaninimo oo qabiil dhan in loo seedin maxaa yeelay qabiil waa cudur oo weligiis soconaya odayaasha hadda oo wadankii la joogaan mar walba waxay ku doodaan qabiil leh oo siyaasadda mar walba way dhegeystaan way daba socdaan aan mar itaakiskus kusoo garanayo biyo maxaa arka odayaasha oo doodaan qabiil ana keligii ay seedin oo waan ma ogame waxa intana keenay wadankan fiilan inuu qabiil yahay midnimadana waa la deeqdaa maxaa yeelay wax walba oo wadankeena xilligii xorriyadda qabiil ma jirin markaas qof walba soomaalinimo iyo wadannimo oo ku tusanaya si oo hal mar cadowga wadanka laga saaro gumeysiga haddana dhibaatada jirta maxaa waaye cadowgii oo wadamadan la siiyey sida Soomaali galbeed ee wadankan ogaadeen iyo NFB-ga maalintaas sida farta looga saaray ilaa hadda qofka soo celi Soomaali
laakiinse soomaalinimo dadkii oo intaas jiray way adkaay oo wadannimay haystay laakiin sanadadan oo hadda ku jiro maxaa yeelay dadkii soomaalida ahaayeen iinka dhexdooda islaayeen qabiil iyo balaayo iyo maskaxda ku jiro marka wadamada dadkan way naga faa'iidaysteen intaan inta dhexdeeda isdileynay hadda maxay rabaan inay inta harto oo soomaaliya laga qaataan oo ay isticmaalaan soomaalida dhexdeed oo diraasad fadhiyanti oo siyaasad iyo wax laysoo dambalaan iyo qabiil taasi waa qalad maxaa yeelay soomaaliya iskale waxaana rajeynaa in oo soomaaliya hal mar israacay arkeen insha allah oo hal calan meel walba ka taagan ama sinti
sareeyo calankeedu ummadii wadankeedu samarkii ekaayo sanadguro wanaagsan sareeyo wajigaayo waxaa saaka ku toosiyo waxaa soo martay oo dhan amba waa la soqlaayo sanadguro wanaagsan sida aad tahay maantiyo nolosha sirkeedu uma sheegana oo samaynihii u dambeeyey wixii aad ku sugneed amba waa la soclaayo kama seecdaadee sanadguro wanaagsan sadrigeygii laabtiyo sababteydii dushiisu inayaa sawirkaagoo samahaagiyo duguuriyo inaad soo noqotaa samadaad ka hilaacdaa saadirkaaga bayaayo sida kuuma rajeeyay sanadguro wanaagsan cabdulaahi sultaan iyo sareeyow manusqaamow kanla siibkanla saar markaan soo yar xasuusto shaybiyaha ilmadaydoo naftu seexadka diiday sanadguro wanaagsan seeflaboodka dhammaan saxariirka adduunyaya shiic bay ku galeenoo calan aansan lahayn inta ay soo sawirteen samalayka siiyeen adle salka hoosiyo sayxaqay ku dhigeen sareeyow maqlinkaase sanadguro wanaagsan soo maaha in qolada baabamino buucaan samaysto calankeeni hanuunka dhigin qaarnimo qalto si kaloo ku yidhaahdo saaka kuu garan maayo sadexaan ku jirnaaye saansaantan arkayo saalaantu ma fiicnee samirkaaga dugso salaantayda bidoonoo sanadguro wanaagsan sareeyow adigoon adduunkan an safaaran samada uuleyno magacaagu sameyn saraakiil iyo ciidan salaan aan kuu fidinayn subaxdiina iskuulka ubadkoosa ku taagan sacab kuu tumayn adduunkan sida allow yaanu sabuutin saajirow rabbiyow inta aan socdaalin su-aashayda ajib waxaan leenahay insha allah ilaahay wadankeena wadaad nooga dhigo waxaan aadi u xumahay baryahan ummadda soomaaliyeed ee dhexdooda kusoo noolooday in badan maamul goboleedyo sida gobolka jubbada oo haddeetan aadka duleysku ugu dirnayaan waxaan ka codsanayaa si gooniya dumarka soomaaliyeed waxa dhigtoonaya waa ayaka waxa meeshaan bacaha jiidaya waa ayaka waxa soomaaliya ku dhimanaya waa ayaka kuwa ahoomoonaya kuwa carruurtooda wax walba ku baabaa ayaka kuwa lacagta laga qaado ee qadoona lagu taageerayna waa ayaka marka waxaan ka rajeynayaa inaana dib loo noqon wadankeena waa mid ilaahay waxaan ka barya ummadda soomaaliyed maslaxa dhex dhigo wadaniyadana insha allah ina deeqdo dowladdeena soomaaliyana aan taageerno dhibaatada ilaahay naga saaro dowladnimo ayaan u baahannahay dowladnimo meeshan waxaan u joogaa umada caddaan dhex tagnaa qabiil waxba ilooma karayo inteenaana dhan hamsiyo kulayiliyo maraf male dhulkeenuye inaga halayne soomaaliyey hoy odaala weeyaan deegaankiina hodanka loo wadaamu qabo
baaday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muhato mari waydo musanawdo kutulmeede meelan jooga baaday muuqdo midabkaagay hormaraaye naftu muhato mari waydo musanawdo kutulmeede marwatu maro ummatala madmahirati marwatu maro ummatala madmahirati की बैल थके मेलाई गोया मेलाई मेलाई आओ मांगा दे मेलाई गोया मेलाई मेलाई كوبادو وصومالي منهم نقول عن صدوين نبيع عبد الله شعبي يقومون هاي وحنا نحن في سوريا. وعليكم السلام صومالي ما يحصل بشيء وأنا كفر سمع مدام فريد صومالي أو إمامك وأنا كفر مدام برامبر طبعا اللوب وهو يقول في الساعة مغلي برامبر قبلي هاي قال لها تكون معك حكي سؤال هذا علنك صومالي رجبلن باوكا قبريقا علنك صومالي رجبلن باوكا قبريقا رجبا قدوها يجمسيقي فوسيقي رجبا قدوها يجمسيقي فوسيقي رجبا قطفها فيساقا قبان نوقو رجبا قطوها فيساقا قبان نوقو رجبا صوقا هاتي علانك نقاليقا رجبا صوقا هاتي علانك نقاليقا رجبا قالين دهابا تاريخ لو قري رجع الصومالية اللي هيك قوافل الساقي قبان نوقو وانتريني عيبا التريني وحالي صومالي منو معكو I
Thank you.